فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى فاقرأ بها خبر الحياة السلام عليكم وعلى خضاب قصدان مقعد وقلبي رجع كسميسان وحو أها مد كل نول هويديس هالجري وحلا جوجته أون خادمة وأدكته أو أوقاته ما مدى حالة ديدا بل سويلك وحو أها مد بعديس أدكته هذا الذين سنة قلفسيهن حتى هويدي أو أهد مد إندولا حدنا نافقة وحو لدق مجريسحن بدلك إنه udhimriyo ayaa waxa uu ku oran jiray hadal fool xun qalbigeedana dhaawacaya wiilkan caasiga hooyadiis waxa uu raaci jiray bangiga si uu soo qaadato mushaar bilaadkeeda kursiga naafada ayuu ku riixi jiray inta bangiga u sii socdaan waxa uu ahaa mid qalbigeeda ku burburiya hadal fool xumo badan oo qalbigeeda dhaawacaya waxa uu maqashin jiray ereyo aad iyo aad u xanuun badan sida waxa tahay mid indhoola haddana naafa ah aniga ayaa lagu ka imtixaamay aad iyo aad ayay iga xanuunsanaysaa hooyada erayadaas haddana hal ereymena soo celineen way iska ilmeenaysay oo kaliya asagana erayo sun ayuu ku sii ziyaadinayay oo waxa uu leeyahay wallahi hadduuna mushaharkan ahaan lahayn meesha duqooshinka ayaan kugu tuuri lahaa hooyadan miskiinta qalbigeeda aad ayuu u xanuunsanayaa marka ay maqasho hadallada wiilkeeda caasiga ah kadibna hooyadii guriga ayuu u celinayaa mushaharka ay soo qaadateen uu ka qaadanayaa hooyadiisna wuxuu kaga tegayaa khaadimada kadib magaaladiisa ayuu galaa asxaabtiisa ayuu iskala soo baashaalaa lacagtii hooyadiis uu ka soo qaatay waxa uu ku dhameeyaa makhaayado iyo hoteelo iyo meel kasta ay xumaan ka jirto hooyadiis kama warqabo xaaladeeda ma weydiinay xataa haddii qof qaraaba uu xaafadda yimaadana waa uu ka buriyaa iyadoo saas xaaladu ay tahay laakiin maalin maalmaha ka mid ah wiilkan waxa uu la safray dhowr asxaabtiisa ka mid ah waxuuna u safray waddanka ay joogeen waddan daris la ah gaari ayayna ku safreen markay safarkoodii soo dhammaysteen waa ay soo laabteen gaarigooda ayay ku soo laabteen iyagoo ku soo jira waddada ayaa gaariga la gadoomay dhaawacooda waxa uu ahaa mid halis ah waxaana ugu darnaa midka caasiga ahaa muddo bil ah ayuu isbitaal ku jiray kadibna waxaa laga soo saaray isbitaalkii isaga oo ku fadhiya kuraasta dadka naafada lagu fariisiyo ma dhaqdhaqaaqi karo madaxiisana waxaa ku soo laalaabanaya maskaxdiisana waxaa ku soo laalaabanaya hadalladii qaabka darnaa uu ku dhihi jiray hooyadiis markii ay saarneed kursiga naafada hadda asigaa kursiga lagu riixayaa si bangiga uga soo qaado lacagta waxaana ku riixayaa gabadhii khaadimada ahayd nimcadii uu haystay ma uuna dareemen ilaa markii uu waayey maahane dhalinyaro badanna sidaasoo kale qalbiyadooda u adkaadeen laakiin allah waa mid u aara dadka laga gardaran yahay walaalayaal cuquubada caasinimada labada waalidna waa mid lagu soo dedejiyo adduunka haddaba qofkii labadiisa waalid u nool yihiin ama mid ka mid ah allahumma adceliyo madaxana ka dhunkado waxaana ibnu aadamka lagu karaameeyaa ducada ay u duceeyaan labadiisa waalid